habaarkan wax ugu horeeyo ilmaha niyad jabinayo waa sababta adduunka soo socda ama nolosha soo socda soo fahamsaneen waxaa loo sheegay inuu waalidkan waajib ku leeyahay habaarkiisana oo ilaahay u aqbalayo ducadiisana oo ilaahay u aqbalayo marka asoo taas la haysto oo wali yaro maskaxdiisa bislaanin qalqal oo waxa ku dhacaysa oo mustaqbalka dambe yani maanta dhan hadii lagu habaarayo hadalkii oo habaar noqdo garaacitaan habaar isku raacdo waxaa imaanayso ka niyad jab oo cunugii ka niyad jabayo awoodihiisa shakhsi ahaaneed oo asaga leeyahay. bismillaah barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamijka saddexaad oo hoos imaanayay barnaamijkii Please Smile maantana waxaa uga hadlaynay barbaarinta wanaagsan ee ubadka alxamdulillaah ilaah mahad iska leh si fiican oo noogu qabsoomay laba bari waxaan rajeynayaa inay kasoo qaybgalayaashu wax badan ka faa'iideen aniga naftirkeyga bixinayna waxaa ka faa'iiday ugu mahad celinayaa titooreysada barnaamijka barbaarinta wanaagsan waxaan u arkaa in uu yahay barnaamij ay u baahan yihiin hooyooyinka yaryar ee cusub ee haysta ilmaha yaryar ee barbaarinta u baahan badanaa anaga dhibaatooyinka haysta waxaa waaye qaybaha ay xasuusta kala leedahay short term memory waxa la dhahayaa jiro ilmaha ma u shaqayso short term memory waxaa waaye midda awoodda u leh ficilkii la sameeyey inuu ku xaroodo meel dheer casharada ku bixinayay waxaa soo hoosgelaysa ka mid ahaa yoolka fog iyo yoolka dhow ee lagu kala koriyo ilmaha iyo garaadka ilmaha sidoo u kala koro iyo faa'iidooyinka ay leedahay dhiirigelinta iyo ciqaabta markii lala dhaqmayo ilmaha iyo waxyaabo kale oo badan barnaamijkan waxaan arkaa barnaamij oo loo baahnaa in mar hore la qabto waa barnaamij aad u fiican oo u baahan hooyooyinka Soomaaliyeed in wacyigelin qaas ah loo sameeyo tanna waxaan isdhihi karaa wax badan ayay ka bedeli doontaa xaqiiqatan tababarkan aan qaadanay wuxuu noo jiheynayaa barbaarinta qaabka u hagaajin lahayn iyo maxaa la qaabka u horumarin lahayn iyo inaan qof soo saarno oo bulshada wax tari karo oo nafsadiisa anfici kara hooyana waa alxamdulillaah qaababka oo traditionka ahna wax badan waa ka wadanaa marka maanta ma sha Allah waxa iyo shalay barnaamijka noo socdo waxa ka faa'iido waxyaabo badan oo cusub oo barbaarinta wanaagsan yani mar walba hooyo walba waxay ku dadaa barbaarinta ee wado waxay u aaminsan tahay inay barbaarin wanaagsan tahay laakiin saasay taa dana qaladaad yar yar oo waxa jiro oo in la iska sax u baahan barnaamijkan waxa ka faa'iideysto waxay tahay wax badan oo u aaminsanaa inay wax toosan yihiin laakiin haddana wax ka hadlaynayo maadaama noo dhamaaday tababarkii dadkii Muqdisho joogay insha Allah kuwa naga fog ee dalalka shisheeye jiro waxa uu qaban doonaa barnaamijkan barbaarinta wanaagsan ee ubadka iyadoo online ah waa maasantiin